kani waa filim kooban oo aynu wax kaga ogaan doono taariikhda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyadoo aynu kaga bogan doono heerarkii tacliimeed halgan siyaasadeed iyo dhinaca horumarinta Soomaaliland وسؤال داويني دلك يا إسكالي كتاعد ومالي والدني لا تلالالي كتافع عيالي ديدكي ودات شالي أحمد محمد محمود سيرانيو مدحوينها جمهورية Somaliland waxa uu ku dhashay magaalada Burco 1938 waxaan waxbarashadiisii hoose dhexe iyo salaba ku soo qaatay dugsiyada Camuud iyo Sheekh sanadihii 1948 ilaa 1959 haddaba muddadaasi uu ku jiray waxbarashadiisa waxa uu ahaa arday dadaal badan oo firfircoon isla markaana ku wanaagsan waxbarashada dhaqankiisuna waxa uu sababay ama uu ku mutaystay inuu madax u noqdo ardaydii waqtigaasi uu wax la baranayay markii uu dhameystay waxbarashadiisii asaasiga ahayd waxa uu u baxay wadanka dibadiisa waxa aanu tagay wadanka Ingiriiska isagoo galay jaamacadda Manchester halkaasi oo 1960 ilaa 1963 uu ku diyaariyay shahaadada BA ee xagga dhaqaalaha 1963 ilaa 1965 ayaa waxa uu diyaariyay shahaadada master oo xagga dhaqaalaha sanadii 1969 kadib markii militarigu ay la wareegeen talada dalka Axmed Siiraanyo waxa uu kamid ahaa guddi aqoon-yahan ahaa kuwaasi oo loo diray bal inay soo diyaariyaan nidaamka iyo hanaanka wadanka lagu maamuli doono barnaamijkaasi oo ahaa intii aanu maamulka ama se hogaanka militarigu aanu faragelin badan ku sameeynin nidaamka wadanka iyadoo bilowgii horeba nidaamka militarigu ahaa mid lagu diirsaday Axmed Siiraanyo waxa uu noqday wasiirkii qorsheynta dhalinyaro badan oo mutacalimiin oo waqtigaas joogtay ayaa loo yeeray waan kamid ahaa oo ku ugu horeeyay wasaaradda noqday ayaan kamid ahaa dalku muddo aad u shaqeeyay imika mashaariic badan ama arrimo badan oo loo aaneeyo waqtigii siyaasada nidaamkiisii ay kamid ahayd مثلا wixii loo jiray iska boqorso crash program hawlaha noocaas mashaariicda noocaas waa mashaariic aanu hindisaheedii hore aanu ka soo dhalanay wasaaradda qorsheynta waan xasuustaa ereyga crash program ama barnaamijka degdeg ee horumarinta anaa gacantayda ereygaa kusoo qoray markii ugu horreysay waa aniga qorsheynta la weydiiyey ee layidhi maxaa lagu dhaqaaqi karaa oo markaa aan ku koobnayn beeraha ay ku koobnaa iskaab u qabso iyo mashaariic aankaas waxaa la qaban jiray kama ay soo dhalan siyaad barre maskaxdiisa waxay dad badan oo mutacalimiina oo waxgarada oo markii hore la xulay oo dawladda iyo gacanta ku hayay iyar mooyaan ayaa cirkaa mariyay waa markii Soomaaliga la qori jiray hawlo badan hore loo qabtay kadib Axmed Siiraanyo uu ku soo laabtay wadanka waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda qorsheynta waxa aan ka mid ahaa maalintii Soomaaliga qoristiisa lagu dhawaaqay 1972 dawladdii waqtigaa joogtay ee ku dhawaaqday Soomaaliga qoristiisa ayaa ka mid ahaa waxaan ahaa wasiirka qorsheynta qaranka ayaan ahaa waxaan aad xusuustaa guddigii Soomaaliga qoristiisa wasaaraddeeda markii hore waxay u soo jeediyeen wasaaradda jaangooyada waan ka hor imid waxay caawisay dhaqankaygii aan ka soo jeeday ee reer baadiye ahaa anigoo dib ugu noqday 1973 ilaa 1978
axmed siilaanyo waxa uu noqday wasiirkii ganacsiga 2 sanadood kadib 1980 ilaa 1982 ayaa mar kale dib loogu magacaabay wasaaraddaasi badan oo dadku sheego oo imanka aan sida looga warqabin dadka qaarkii dhalinyarada dambe laakiin dadkii waqtigaa jooga waxaa ka mid ahaa warshada sibirka ku dagaalankeeda ka mid ahaa oo leeyahay waxa laga sameeyaa xamar baa laga sameeyaa waana ma dhagaxa berberay la soo qaadaysan oo doonaysa inaad koonfur geysaan oo leeyahay sibirka inta badan halkaas cunaysa waa in dhagaxa la soo raraa xamar warshada laga sameeyaa halka ay muxuu ahay maadaama isticmaalkiisa halka ku badan ninka isoo taagay baan ahaa ku dagaalamada dekada berbera dhismaheeda ka mid ahay oo la dacay in loo wareejiyo meel kale oo koonfur ka mid ah waxa ka mid ahay wadada berbera iyo burco isku xidha ayaa ka mid ahay waxa ka mid ahay mashaariicdii la siin jiray horumarinta iyo tagwata lagu elbaanku wadeen iyo waxa noocaas oo dhan galbeedkan laga waday hargeysa galbeedkeeda ayaa ka mid ahaa mashaariicda aanu xoog iyo xoog ugu dagaalanay nabada doone anta yicinadaamka dawladnimada jecbale dibadiyo gudahaba danjiraha umiganu dagnaanta ogoleyn baale dagnaanta ogoleyn baale شريعة ظلمكي كدوري وينها وفديالي دوداقي وحقردو الكدتا رسولي دبع سني ودي لالي دبع سني ودي لالي muddadaasi axmed siilaanyo wahayay xilkaasi waxaa aada u soo dhaweeyay islamarkaana ku diirsaday ganacsatadii iyagu dhoofin jirtay xoolaha nool kuwaasi oo cadaadis fara badan uu ku hayay milatarigu axmed siilaanyo intii uu ku jiray dowladii Soomaaliya waxaa lagu xusay inuu ahaa haldoor firfircoon oo mas'uuliyadiisu ay aad u wanaagsan tahay haddaba markii uu sii batay xarigii cadaadiskii jirdilkii iyo dulmigii dowladii Maxamed Siyaad Barre ay ku haysay dadka iyagu ka soo jeeda dhulka Somaliland oo waqtigaasi ahaa goboladii waqooyi ayaa axmed siilaanyo uu ka baxay dowladdaasi sanadkii 1982 kadib markii axmed siilaanyo uu ka baxay dowladii milatariga ahayd waxa uu waqtigaasi tagay waddanka Ingiriiska iyadoo waqtigaasi ay ku beegnayd xilli la abaabulayay dhaqdhaqaaqyadii ugu horeeyay ee jabhadii hubaysneed ee SNM haddaba madaxweyne siilaanyo markii uu tagay waddankaasi Ingiriiska intii uu joogay waxaa loo magacaabay xafiiskii SNM ee waddanka UK dintiyo shariicada dulmikii ka dhowre weynaha u fidiyaale دوداقي وحقردو الكدتا رسولي دبع سني ودي لالي 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 dhinaca kale mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo muddadii uu London joogay oo madaxda ka ah xafiiska UK ee dalka Ingiriiska waxa uu dadaalo fara badan ka galay sidii beesha caalamku ay ugu soo jeedsan lahayd tacadigii xarigii iyo dilalkii xaqdarrada ahaa ee guud ahaanba shacabka lagu hayay gaar ahaan siyaasiyiintii la xidhxidhay ee uu ka mid ahaa Ismaaciil Cali Abakar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad ee Soomaaliya iyo Cumar Carte Qaalib oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda isla markaana ahaa gudoomiye ku-xigeenkii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane axmed siilaanyo waxa uu xadhigii siyaasiyiintaas uu u bandhigay midowgii baarlamaanka adduunka oo fadhigoodu ahaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland baarlamaanka Ingiriiska oo warbixin dheer
uu diray guddigiisa u qaabilsan xuquuqda aadamaha guddiga caalamiga ah ee garsoorayaasha adduunka iyo hay-adda xuquuqda aadamaha midowga adduunka oo iyaguna si adag u dabagalay arrintan siyaasiyiintaasi iyadoo ururkii Axmed Siiraanyo u doortay xidhiidhiyaha arrintaasi nimankan la xidhay iyo waliba inuu noqdo qof ay ku kalsoon yihiin oo ay isweydaarsadaan warbixinta ku saabsan xaaladda maxaabiista siyaasadeed ee ku xidhan magaalada Muqdisho bartamii haddaba 1984 ayaa Axmed Siiraanyo loo doortay gudoomiyihii SNM kadib markii uu howlo wax ku ool ah ka soo qabtay dibadda dardarna geliyay dhaqdhaqaaqii SNM ee dibadda Axmed taageerayaashiisii gudaha iyo dibadduba waxay kula taliyeen inuu noqdo isla markaana uu qabto dalka Itoobiya oo uu hoggaanka u qabto halgankii iyo halgamayaashii ururkii SNM waxaa 1984 marka London buu u fadhiyay SNM uu joogay dibadda weynii SNM baa la isugu yimid si caadi ah uga soo qabay sidaa laba uga soo qayb galay heerkii iyo caruurtii iyo dadkii xagga asaas u fadhiyay halkii markaa isugu nimid ayaa la qabsaday oo qofku ku dhacdo la yiri هذا صارت الحكي دباتي له جالسات هو قيلي ولا جاي الوقت يبقى على قبضه كما واحد نقطات ما كانوا كذا عقل لا قرصه على شيء هيركيسي هو عامل ورث هو متعصب له هو كثير من الشيء ما شكل جري براس ولا قليا ما هو كراهه اللي مثل واحد نقطتين في مقاله تصلح مقاله كده الى هكذا بعضنا عامل يجي كثير لا haddaba maxay Axmed sababihiisii loogu doortay inuu u hogaamiyo ururkii halgamaaga ahaa ee SNM ay ahayd oo ay arrintaas ku fadhiday surcadii iyo magacii aan ku lahaa ama wax qabashada guud ee qaranka loo qabanayo ama khaasatan difaaca waqooyi iyo danihiisa iyo horumarinta sirorkan ka qaadan jiray iyo sidii aan golayaasha ugu dhiranaa ama ugu hal adkaa nidaamkii siyaad bare marmarka qaarkood golaha nolol kala bixi jiray labadayda loo sukay dhageysan jiray ama wax badan kaga horan jiray marka taariikh aan ku lahaa daraadeed taa hore ayay ku timi markaan jidda maray ayaa laga bilaabay hoggaanka SNM adigu qabo qotay in lagu adkaysto murashaxnimo isumaan taagin qasab lagu xasbeed bay ahayd oo la adiga qabanaya madaxtinimada 1987 ayaa mar kale loo doortay xilka hoggaanimo ee SNM waxa uu halgankaasi soo dhaafiyay 6 sano oo adag isla markaana wanaagsanaa oo halgankii si wanaagsan u socday waxa uu hogaaminayay SNM oo awoodeeda dhaqaale iyo militariba aad u yar tahay una babac dhigay taliskii macangaga ahaa ee siyaad bare oo markaa ahaa mid ka mid ah dawladihii ugu laxaadka weynaa Afrika dhinaca militariga iyo dhinac kastaba marka halkankii laga hadlayo markii SNM ay gashay Ethiopia la tagay urradii kale oo dhan waxa isugu wartageen ururkii la oran jiray SSDF ururad kala duwan bay ahaayeen waa isugu wartageen urur weyn buu ahaa mucaawino badan laga siiyay Liibiya iyo meelo kale iyo Tunisia iyo Ruushka iyo Cadan iyo meelo badan laga siiyay SNM aad bay u dadaashay لكن أدبا لوجا وينا هدي أدونك أي هريان أي نقدان هدي تاجر أي هريان أي نقدان هدي هوك أهستان أي نقدان هدي إذا ما يبدأ يوجا كلا دون أهستان وركي اسمه لوجي إلهي وقدري أن آخر كي سياد برعدة في أسنة منبحث وقت جاء أن كدجي يكهر إثيوبيا waxay gaadhay go'aan ay oranayso xisbiga qura ee jiri kara ee socon kara ee leadership leh ee la hantay waxa weeye ee jiri kara waa SNM urur kale aan ogolahay waxay ahayd muddadii SNM xoogaysatay howlgaladii ugu waaweynaa ee ay fulisay sida howlgaladii buuraha ee 1984 iyo kii Burcaduurey gudagalkii May 1988 sidoo kale waxay ahayd halgankii waqtigii ugu adkaa isla markaana ahaa kii ugu go'aan qaadashada adkaa waxaana kamid ahaa xaaladihii ugu adkaa ee SNM soo wajaha muddadii uu Axmed Siiraanyo hogaaminayay heshiiskii Soomaaliya iyo Itoobiya ee April 1988
kaasoo ay qodobadiisa ka mid ahaayeen in halgamayaashii SNM ay ka baxaan dalka Itoobiya laguna soo xoreeyo gudaha Soomaaliya oo ay ka talinayeen taliskii macangaga ahaa ee Siyaad Barre. wuxuu nagu amray madana Xuseen nagu amray inaanu ciidamadeedii la soo noqon sidii heshiisku ahaa oo 15 kilomitir dib u soo celino waayo waxa ciidamadu qolaba 15 kilomitir ay gudahooda dib u qaadaan u celiyaan oo xariyihii xuduud ahaa iyo saldhigyada xuduud ahaa ee labada ciidamada dawladdu soo fadhiyeen ee xariyihii miinu ku xareysnaa balaa ku xareysnaa adadka in dib loo ceshay noqotay marka anagu waxa noo muuqatay faa'iido ah dhinaca faa'iidada isbaqiiq u ahay waayo dariiq kale noo furan baan jirin oo nalama ogola inaan dagaalano dariiq kale noo furan marka waxa weeye aniga magisto u tagay wafti intaan ka haystay markii horena sii diyaariyay oo intaan hore u sii diray dad badan idin ciidamadeeni u diyaariyay inay dagaal galaan khiyaamaan runtii ku sameynay marka Itoobiyaanka iyo Siyaad Barraba oo aad noogu hirgashay ilaa xadid ma waxay in ciidamadii firiqsanaa intaanu aaga bari iyo aaga galbeed ka kala dhigno Maka iyo Madiina la oran jiray ciidana aan isugu geynay meesha la yiraahdo isugu geynay kaba qorri ciidana aan isugu geynay ay ka soo baxayeen meeshii la oran jiray ماشي اقا برقه دينا برقه ايغ اهي لبا برود بان كسو ururino 15 kilomitir dib soo noqono dabadna marka ciidamada Siyaad Barre noqdaan ee xariyi miinu ku xireysanayaan dhufaysadooda ay ka baxaan kuwan Itoobiyankuna inaga guuraan ama ay soo noqdaan meeshii oo cidlaan aan cidi inaga daadaynin aynu ku dhufano oo gallo oo saas ay noogu hawl yar si kale inuu yeelana garanayno ko mangistaan u tagay anigu iyo wafti aan wataa mangistaan toos u wada hadalay waxaan ciidamadeedii sidaas nagu amartay waanu soo celinayna laakiin waxaan doonayaa ciidan ilaa 1500 ilaa waxoogay aan geliyo gudaha si uu ilaashan dadkii reer miyiga ah iyo tuulooyinka iyagoo dharcada waxaan doonayaa waxoogay shidaal ay siiso waxoogay dhaqaale ay siiso iyo waxaan ciidamada ku soo raraa intaasi aad iyo aad buu ixtiraami jiray wuu iga yeelay intiiba wuu iga yeelay waxaan u sheeg ciidankaaga harar ku joogay taliska intiibuu u sheegay marka ciidankaygii markaan soo celinay waxay u qabeen inaan la cooperate garano waan tagay dagaalkii baan saxeexay waxaanu dhaqaaqa waqti baanu siinay waxaanu baxa markay ciidamada Siyaad Barrena ka caanay dhufisadooda ka baxaan ka tagaan kuwa Itoobiyaana ka soo noqdaan weydaartu ciidamada taagna markaa gudihii gal dariiq kale oo noo furaabaan jirin ururkii uu hogaaminayay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa uu go'aankaas kaga jawaabay weeraradii gudagalka ee 27 ilaa 31 May 1988 kaasoo lagu soo galay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa waxaana halkaas lagaga hor yimid awoodii Siyaad Barre ee xoog weyneyd taasoo ku noqotay dhirbaaxa weyn ciidamadii Siyaad Barre waxaana si axmaqnimo ah madaafiic iyo diyaarado ugu garaaceen magaalooyinkii waaweynaa oo ay dhulka la simeen وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي kumanaan qof ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale in ka badan 500 oo kun oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii iyo magaalooyinkoodii iyagoo tagay bariga dalka Itoobiya Axmed Siiraanyo waxa uu baaq u diray jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa xogayaheeda guud iyo madaxdii guddiga qaramada midoobay u qaabilsanaa qaxootiga UNHCR si ay gargaar degdeg ah ula soo gaadhaan dadka barakacay waxaana xiriiq qaxooti looga sameeyay bariga Itoobiya waxa kale oo uu la hadlay dalalka deriska la ah si ay u gacan siiyaan howlgalladii ciidan ee SNM waxaa mar walba barbar socotay mid diblomaasiyadeed oo beesha caalamka lagaga dhaadhicinayay qadiyadda SNM iyo dhibaatada dadka lagu hayo ee taliskii Siyaad Barre taasi oo ay wadeen hogaamiyayaashii iyo taageerayaashii SNM ee dibadda iyo gudaha waxaanay SNM kaga guuleysatay dawladii kali taliska ahayd dhinaca diblomaasiyadda iyo kasbashada dhagaha caalamka waa hadda baqashaa siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta waxa soo wajahay badan xagga loo xota oo wada waxba kama horta inagu dimuqraadiyaduna waa la qabtaa laakiin nidaam lagu kabaxo iyo meel lagu kala baxo iyo hab lagu kala baxay
axmed siiraanyo muddadii dheereyd ee uu hogaaminayay snm waxaa dadka qaar sheegeen khilaaf soo kala dhex galay hoggaankii snm 1990kii ayuu xilkii guddoomiyenimo ee snm uu ka degay khilaafkii snm waqtigii siiraanyo ugu badnaa ama khilaaf baa ka dhacay horta kow marka ugu horeysa ururada siyaasadeed ka soo qaadan masala ilaa falastiiniinta ilaa kuwa kale qaar aan 100 meelood u kala jabanin ma jirto ururka aan kala jabin sida cabdiwaraab maadda oo yiri cidda kagama iman ururka qore aan kala jabin ee baabi'in wuxuu ahaa snm ee sida dalka ku soo galay muddada 7 sano ku dhow hayay anigu ahaa shirkii bali gubadle haddaba maxaa sababay inuu ka dego xilkaasi aan ka degay dad badan baa waxay yiraahdaan ama reer baayida ka deg ama ciddaas ka deg runtii haddii aan maalintii dambe aan istaagi lahaa waan heli lahaa dadkii jooga dhamina way ogaadeen laakiin mucaarada doori way jirtay laakiin dadka intiisa badan way taageersan anigoo ururka uga turaya si kala jab dambe anigoo u arkayay ama markii aan dhalinyarada haba tacalumka hadi gooraale maan aaminsanin qof had iyo gooraale power u haya oo aan u arkayay inay dantu ku jirto in isbedelo yimaado aniga iyadaan cidina ikhastin aniga ka tegay oo ka tanaasulay oo ilay cid kale hawad kadib markii axmed siiraanyo xilkii u wareejiyay hab dimuqraadiya shirkii bali gubadle ayaa waxaa loo doortay cabdiraxmaan axmedow cali inuu hogaamiyo snm قبيل كديدالي بالهمدا دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديدي هوشتالي كان لعبك دور سنو وحكستا ودقاتو ودبجري دحلي سالي 1991kii markii snm gacanta ku dhigtay xukunka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay qaban qaabisay shirweyne lagu heshiinayo beelaha Soomaaliland oo dhan kaasoo ay ka soo qayb galeen dhammaanba beelaha Soomaaliland laguna qabtay magaalada Burco iyadoo lagaga tashanayay aayaha Soomaaliland halkaana lagaga dhawaajiyay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xorriyadeeda la soo noqoshadeeda intii dalka la soo galay hawlaha aan waday ama doorarkan cayaarayay waxaan taariikhdu dafiri karin weeye mar walba waa si dhibaatooyin badan iyo shaqaaqooyin ay iska jireen oo waqtigii uu ahaa waqti kala guur oo xasaasi ayuu ahaa waqtiga mar walba inta aan isku hawleeyay wuxuu ahaa inaan odaynimo muujiyo oo wixii marba isku dhacaha ee dalka ka jiray inaan nabadaynta dalka doorka qaato axmed waxa uu lahaa bilowgii ama curintii shirkii caanka ah ee la magac baxay kulanka nabadda ee magaalada Hargeysa laguna dhawaaqay xabad joojinta iyadoo shirkaasi la isku afgartay in lagu joojiyo guud ahaanba xabadda laguna soo afjaray dagaalkii magaalada Berbera 1992kii لكن ماذا وكيل ودي حوش
guud ahaanba kulankaas nabadda waxaa si weyn u soo dhaweeyay dadweynaha ku dhaqan waddanka waxaana fagaaraha khayryada looga akhriyay go-aankii ka soo baxay shirkaasi waxaa kale oo xigtay shirkii towfiiq ee degmada sheekh taas oo labadii boolood ee heshiiska hargeysa ku saxeexay ay nabad buuxda ku guntadeen looguna ballamay shirweynihii beelaha Somaliland oo dhan isugu yimaadeen 1993kii ee ka dhacay magaalada Boorama halkaana laga soo dhisay dawladdii Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal markaasi Axmed waxa uu ka mid noqday baarlamankii ugu horeeyay ee Somaliland وسؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي 1995kii markii dagaalkii sokeeyay qarxay ayaa Axmed Siiraanyo ka howlgalay sidii colaadda loo soo qaboojin lahaa waxaan u abaabulay shirarkii silsiladaha ahaa ee lagu soo afjarayay magaalada Burco caafimaadka doona daaweeya cudurku dabargooya cudurkaani danyarta u adeega daadihii iyo maatada Axmed Siiraanyo waxa uu door laxaad ka qaatay hubka dhigistii lagu qarameynayay mujaahidiinta SNM munaasabadaasi waxa ka hadlay Suldaan Saxardiid iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal
وعلى المسلمين ما يمسكون ليقوم بالصورة في وجه أمود بيتها كيف عن تصور منه وهو مثل الكفار فيها على مثل الصورة وجهه يقدم بغير مبدا ويعرف كما يقول ولاني رجع بغير كلام المسلمين وعليها المسألة السلام هذه يدي معايا مثلا أقول حياة وتوسط معايا السلام عليكم حلم في أشياء كثيرة لا قالوا فأنت أحمد الله يبرحها أحمد الله ما يسعى لكن كتب لي واحد من المسلمين وحاولوا أن يقتلوا إياه وين نفعل الإصابة لا هي منصرة من الإصابة وعليها الأسنة والذي درك يعطيه درك وين منها هي منها هي كل غير ما تروح يصاب مثلا لا أرض الأسنة kun 1979 ayuu ka mid noqday golihii wasiirada isagoo noqday wasiirkii maaliyadda ee xukuumaddii cigaal allaha u naxariistee kaasoo wax badan ka bedelay waxaana si weyn loogu xusuustaa sixir bararkii wiiqay dhaqaalaha dalka waxaana door go-aan qaadasho uu ku lahaa golihii xukuumadda waxaa kale oo uu ka qayb qaatay siyaasadda arrimaha dibadda 1999 ilaa 2000 waxa uu noqday wasiirka qorsheynta qaranka dibadiyo gudahaba danjiraha humigane degnaanta ogolayn baale 1997 ayay ahayd markii daadad ay soo saareen xasuuqii ba'naa ee loo geystay ummaddii Somaliland ee xabaalaha malka durduro arrintaasi oo noqotay mid laga argagaxo bulshada iyo shacabweynaha Somaliland qeyr gelisa ayaa Axmed Siiraayo si adag ugu dadaalay dadka aynu maanta halka lafahoodii ku arkayno ee la isku xidhay ee caruur uurka ku jirta lahaa ee ubad yaryar lahaa ee dumar lahaa ee waayeel lahaa ee ciidan lahaa wax walba dadka yaa loo qaadanay inay ahaayeen markii la soo galay 1988 inay ahaayeen ciidamadii halgabayaasha ahaa ee jabadda asana dadkaasi waa dad aan dagaal ku jirin dadkaasi waa dad wax alla waxay geysteen aan jirin dadkaasi waa dadkii meelaha ma aha dadkii dagaalamayay oo haddii la odhan lahaa ciidamadii dawladdu waxbay iska celinayeen oo ciidamadii u bareeray inay naftooda furaan oo dalkooda xoreeyaan oo dadkooda xoreeyaan ayay iska celinayeen ma aha hal ogaa dadkaasi waa dadkii aan dagaalka ku jirin dadkaasi waa dadkii aan wax alla waxay geysteen aan jirin inta la soo urursay iyagoo ama meelaha sugan ama magaalada jooga oo xeryahoodii iska jooga oo aryahoodii la jooga oo meelaha iska taagtaagan inta la soo ururiyey sida oo la isku xidhay sidaad aragteen loo qalay madaxweyne inaynu hubinno iyo inteena kale ummaddii waxaa geysatay dadkii ashkhaastii waxaa geysatay islaam inagoo areero ahayd oo cid u ahayd ashkhaastii waxaa geysatay kuwii la mid ahaa oo xukumayo in la baadi goobo allahu akbar warrada dunida lagu fidiyey bidaa lagu sheegin